magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu taageeray dib u doorashada madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole. munaasabadan ay ka soo qayb galeen qaybaha kala gedisan ee bulshada ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada. munaasabadan waxaa lagu qabtay hotelka caanka ah Holiday Inn ee ku yaala galbeedka magaalada Toronto. ugu horreyn waxaa meesha ka hadlay dad aad u fara badan, sidoo kale waxaa heesa dhuuxa ay lafaha dadka dhalaaliyay ka qaaday fanaaniinta kooxda qarandoon ay ka mid yihiin Faaduma Cali Jaamac Nakrum iyo Calas Muuse Cadde. ugu horreyn Xasan Cabdullaahi Xasan Karato oo xiriiryaha barnaamijkan ayaa shaaca ka qaaday waxa loo qabtay munaasabadani waxay tahay ujeedada ka dambaysa. walaalayaal barnaamijkeena caawa oo ah barnaamij ay yiraahdo oo ah dib u doorashada madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole. dhanka kale waxaa meesha ka hadlay Axmed Cusmaan Yuusuf oo loo yaqaan Axmed Ciid oo ah madaxa qabanqaabada munaasabadan. Axmed Ciid ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in sababo badan darteed loo baahan yahay in dib loo soo doorto madaxweyne Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole. waxa uu tilmaamay Axmed Ciid inuu Faroole guul weyn ka gaaray buddigii dastuurka qaranka Soomaaliyeed ee lagu qabtay shirkii Garowe 1 iyo Garowe 2 isagoo run ahaantii tii laga rabay mooyee ku darsaday tii qarannimo midii qarannimo ama federaalka. waad la socotaan Garowe 1 iyo Garowe 2 constitutionkii lagu ansixiyay isagaa sabab u ahaa, isagaa gogoshaa fidiyey. laakiin odayaasha mas-uulka naga ah anugu waxaan u gudbinayaa yacni baaq anoo magaciina ku hadlaya in ninka odagaa dib loo soo doortaa. sidoo kale waxaa madasha ka hadlay Ekis Xildhibaan Axmed Caawad Casharo oo ka mid ahaa wasiiradii hore u soo maray maamul goboleedka Puntland. waxa uu tilmaam ka bixiyay baaxadda dhulka ay ku fadhida Puntland. Puntland waxay ka kooban tahay 210 kilomitir isku wareega bay Puntland ka kooban tahay. Puntland waxay ku taalaa geeska Afrika. waxa ay maaragtay xiriirisaa waxay tahay midiidinka iyo jidweynaha adduunka loo maro jidinka loo maro adduunka ayay ku taalaa. marka anugu halbeegay waxaan saaray Cabdiraxmaan in lagu dooranayo ama ila muuqatay inuu leeyahay halbeega ah waxqabad. ayaan kulligeen soo uma wada ayidsanin. all we are supporters. kulligeen waxaan nahay rag iyo dumar supporterska Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole. kulligeen waxaan nahay supporterskiisa. mahad Carab oo Cali telefishinka Universal magaalada Toronto.